adigana dabcan dhigaa waa ka maqashay waan daawatay ها واداوده وحول ميل واداوده haye وجعلالهن إن تجو إن شاء الله مردون وتجينا sawiro intaadan tegin maxaa u malay kartaa ولا هرت إني قروح بدنانيس كوس دت شدنا ولا صعدة إسكت شدنانيس بحيان نقرأ على عاد dalxiis waxaan idin leeyahay oo anigan aan ku jiro meel ma idinka haraayo waa iska soo baashaal doonaa oo taariikh iyo xasuus ayaa meesha ku soo qaadan doonaa insha Allah diima dadkan تليجي كنا لا نقول باشا ديارة راعي كنا ما شاء الله مبروك وتاجر سنة وفرحنا صوبت كلية ديار تراعي وسد ودكان يراعوني مع حبايب مسكينة ذا حنوستك مرت سفر دير مقلك sida aragteen astaajo ayaa gabdhaha team 27 u kaxeen rabo Langaawi in badan yacni reer committee waxay sheegeen in yacni safarka saamiye ay raacdo maadaama yacni teamka ay kamid tahay dabcan sida yacni ana asdii kar saamiye waxay safarkan ugu baaqanayso waxay tahay ayada hore u joogtay laakiin gabdhaha team 27 Muqdisho waa markood ugu horeyso sidaa darteed ayuu astaajo u xulay oo yacni u doortay inay gabdhahan kaliya safarkaas aadaan dabcan waa laga yaabaa inay mar kale oo ka dhigo laakiin astaajo sababta ugu weyn oo saamiye safarka ugu yacni oo u kaxeenin waxay tahay yacni inay ahayn markood ugu horeeyay dabcan inay hor u tageen laga yaabaa laakiin gabdhahan oo team 27 Muqdisho waxaa laga yaabaa inay xiise u qabaan ayna tahay markood ugu horeysay sidoo kale asna wuxuu yacni oo jeclaystay inuu diyaarad uu ku baxo ileen tareenka waa waqti badan oo qaadana mana awoodo inuu yacni oo markaas oo waqti badan oo tareen dhex fadhiyo waan ka wareysan asxaajo xaalkiisa sidaa darteed ayuu yacni u doortay inuu diyaarad oo ku baxo muuqaalka diyaarta aad waxaan rajaynaynaa habeenka ashee noo dhacdo waxaa subscribe noo saarta aad iyo aad umahadsantahay asxaab marka sababta u weyn ee saamiye oo safarka loogu reebo ayaa ah in yacni hore u aaday ay ahayn markeed ugu horeysay waxaan rajaynaynaa sidaas u fahantaan reer community oo in badan communitiyada kusoo qoran saamiye maxaa safarka loogu reebo